السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا قالي أو كحرن جانل كي مستر محدين وحايد رجينا عفمات ونكسن هذه رجينا يا مادام الدونك أجره ولا عفمادات وحايد رجينا يا بش يبرواقو إن أقولين كجودان أنت حنوصل إلها عافية أنت أو عفمات قبنا إله أزيادية داود المان 10 كنا وحينوها يا إن شاتي أسينوها يا أمشى وجدين داود شاتيان aad iyo aad u fudud yahay hadana uu qurxoon yahay marka lagu labisto labisahan uu ku qurxoon yahay marka daawadayaal shaatigan cabirkan ku sameey rabno wuxuu yahay dhirirka 45 waaye isbaalahana waa 15 gacanta dhirirkeedana waa 22 dhaxda xabadkana waxaan ku haysanaa 31 dhaxdana waxaan ku haysanaa 29 daawadayaal marka saa u jeedin basawirka wareega hoose wuxuu haystaa sheezo leeyahay mise carvo leeyahay marka wareegaasi ayaa wuxuu ka dhigayaa qurux u sameynaya marka horeyna waxaan ku sameyn doonaa gulusan ku sameyn doonaa laakiin inta ka horeyso waxaan fiirsanaynaa sida loo jiraayo iyo sida loo tolaayo marka daawadayaal ee la socda step by step si tartiib ay la socda casharkan waxaana ugu soo talagalay tolmadiisa waqti dheer ay u qaadatay sababtoo ah shaqooyinka la hayay marka daawadayaal soo hagaajinteeda waqti ugu soo qaadanaa marka daawadayaal hadda waxaan idin soo hormarinayaa qaab jarmada aan soo hormarinayaa tolmadan waxa waa maalmooyin kadib waan soo gelinayaa insha Allah hadoo Ilaahay idmo bal ila daawada daawadayaal waa kan shaatiga aan sameeysan lahayn marka cabirada anaga meesha ku haysano isbaalaha waa 15 inji waaye marka waxa uu kala goynaynaa laba meelood 7 baraan saarnaynaa kadibna waxa uu soo baxaynaa wareega xabadka oo ah 31 afar meel marka oo qeybana waa 8 dhiman calaamaysanayna sidatan kadibna hal inji baraan ku darsanayna oo inta aan tolo lahayn kadibna waa kana hadana dhaxda wareega dhaxdan waxa waaye 29 waaye marka afar meel oo qeybana waxa waaye 7 waaye 7 geedana calaamaysanayna kadibna hal inji baraan ku darsanayna qoorta gadaal 3 oo calaamaysanayna bal ahaan dhirir ahaan waxa calaamaysanayna hal inji oo calaamaysanayna wareegaas yar oo sameeysanayna kadib marka calaamadooyinkeena ayaa waxa sameeynayna riigmo dheer oo sameeysanayna oo ilaa hoos anaga u baxayna cala waasic misasi oo balaaran anaga u baxayna kadibna waxaan sameeynayna waa jaranayna daawadayaal shaatigsiisaba waxa waaye in xabadka iyo xagga dhabarka waa la kala jaraa marka hore waxaan sameeysanayna dhabarka marka jarano kadib dhabarkan jaranayna koodi dhabarka marka jaran kadib ayaa waxa sameeynaa qaybta xabadka ayaan fidsanayna sababtoo waa laba laabaya hore uu ka dhamaada gulusan rabnaa inaan sameeyno marka waxa uu dhaafayna space yar oo dhaafayna oo la eg ilaa in 4 inch oo kala camal dhaafayna sababtoo waxa waa laba laab la sameeynaa oo balaaran kadib dhabarka aan kor saarnayna oo kor jareena isla sida anaga marka hore oo jarnay dhabarka oo jareena marka daawadayaal shaatigan waxaan rabnaa inaan hoos aan ka sameeyno qaab sheez ahaan mise wareeg yar galaayo marka wareegaasi waxaan rabnaa inaan sameeyno marka cabirka kor laga soo bilaabo oo wareega joogiisa qaybta rabnaa wareega aan sameeyno joogeedu wuxuu noqonayaa 8 inch iyo baro noqonayaa kadib inta ziyaadada oo xabadka ah oo inta doondonta ah waa iska jareena daaratid hadii kalena kor hoos waad laabi doontaa hadaa ku dhaaftid waa caadi marka qaybta horey qoorta waxaan jarnaa laba fara oo calaamaysanayna labadaas fara iska jareena oo si u kala weynaadaan hore iyo gadaal si u kala weynaato haddana waxaan sameeysanayna hal fara calaamaysanayna oo inta dhabarka meesha xigto marka calaamaysan calaamadan marka waxay noogu aadeysaa inta anaga laba laaba lahayn ay noogu aadeysaa kadib xagga hoose waxa sameeynaa 8 ayaa calaamaysanayna waa inta anaga rabno inaan u sameeyno sheeska mise wareeg aan rabno inaan gelino waaye 8 inch calaamaysanayna 8 inch marka calaamaysano marka wareeg oo soo sameeysanayna ila daawada waa kana sidaan
wareegaas markaa u sameyno kadibna waa jareynaa waa kana sidaan u jareynaa wareega gacanta ku dhigi lahaa cabirkiisa qaadanayna waa 9 inji bar waaye marka daawadayaal hadda dhabarka iyo xabadka sidaas oo noogu go'ay oo jarmadooda hadda waxa uu sii gudbeynaa dhinaca gacanta u gudbeynaa waa kana gacanta afar mar isku laabnay waxa calaamaysanayna hadda wareeg gacanta ku dhigi lahaa calaamaysanayna dhererka gacanta haysana waa 22 waaye hal inji bar ziyaada ku dareena marka balaca afka hore waxa ka dhiganeena 4 aan ka dhiganeena 4 inji ka dhiganeena kadibna hal inji oo ku darsaneena oo tolmada kadib hadda marka wareeg marka calaamaysan kadib waxa saaraneena cabirka anaga u baahneen oo ah shaatiga daawadayaal shaatiga cabirkiisa waa 9 wareega wuxuu ku jiraa 9 inji bar ku jiraa anagana gacanta 9 inji ku jireena iyo bar hadhow dambe gacanta hal inji bar ka qaadan doonaa korna sidoo kale marka gacanta waxay noqonaysaa way ka weynaanaysaa wareega shaatiga way ka yar weynaanaysaa laakiin kasta tirta ay ka weyn tahay waa loogu talagalay sababtoo marka lagu dhajiyo qaab oo nadiif ay ugu soo baxaysaa marka hadda gacanta waxa sameysanaynaa wareega gacanta qaybta dambe ma ahna qaybta hore ayaa waxaan sameysanaynaa waa calaamaysanayna wax yarna waan ka jareynaa oo hal nus inji oo kale aan ka jareynaa inay yara kala weynaato waa sababtoo ah marka dhow la gashto oo lagu labisto kadkadood badan ma ka soo muuqanayo waxay noqonaysaa dirtay noqonaysaa xabadka dhan saafi oo noqonayo kadkadood ma galayo kadibna iska calaameynayna maadaama marada ay isku egdahay wajigeeda dhabarkeeda isku egyahay saadan uu kala dhumin hadhow marka gacanta sameynaysid waa iska calaameynaysaa marka daawadayaal gacanta jarmada intaan ugu dhamaatay hadda waxaan jarnaynaa suunka anaga ku sameysan lahayn shaatiga marka la sameeyo kor ugu xiran lahayn sameysanaynaa suunkaan jarnaynaa suunka marka jarmadiisa waxaa rabnaa ka dhigna cabirkiisa ilaa ay qiyaas ahaantii 6 inji ka sameeyno kadibna hadhow marka la isku laabo oo la tolo si uu u noqdo 3 inji camal ugu soo baxo mise yar ka yar xataa doo soo baxo waa caadi hadda suunka marka jarnay kadib hadda waxa jarnayna mar yar oo balaceeda hal inji camal uu yahay oo aan ku sameysan doono qorta shaatiga qortiisa ayaan ku laabanayna sidaas oo laabanayna marada kadibna qorta ku laabanayna daawadayaal shaatiga jarmadiisa meeshaan ugu dhamaaday waa inoo casharkeena xiga iyo tolmada waa ku mahadsantahay daawashadaada fadlan haddii aad hore asxaabta ugu mid ahayd like inoo saar comment iga inoo soo bixi haddii aad nagu cusub tahayna ha ka ilaawin inaad subscribe aad noo saartid gambalelkana u furatid si cashar walba aan soo dhigi doono aad ula socotid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu